wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Ali Maxamed Waran Cadde ayaa sheegay in diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo muwaadiniinta ee baarlamaanka horyaala hal mar la wada qaban karo kuwaasoo xisbiyada mucaaradku ay sheegeen in haddii aan la kala saarin ay caqabad ku noqonayaan qabsoomidda doorashooyinka lagu wado inay dhacaan sanadka soo socda wax ay carqaladaynaysaa ma jirto way wada socon karaan way kala horeyn karaan mar baa muxuu ahay wax alla waxay seelayaan ma jirto diiwaangelinta annagu bay muxuu ahay bisha 9aad waanu dhamaystiray waxaan jeedaa bisha December way dhamaystimaysaa marka haddii imika ay diyaar yihiin oo diiwaangelinta doorashadu ay diyaar tahay oo lacag loo hayo waan soo fadhiisanay oo kaanu diiwaangelino iyaguna diiwaangeliyo haddii aanay lacag haynin oo aanay weli waxba haynin oo axsaabta mucaaradku aanay lacag hayn oo aan commissionku lacag hayn oo weli gaalada aanay lacag haynin marka haddii leediin de aan iska wada joogno aan wax qabanay suuragalay waayo sharcigan waxa ku qoran 6 bilood ka hor maalinta la footaynayo waa in qofku haystaa kaarkii diiwaangelinta iyo kiisaska marka anigu waxaan ku dadaalaynaa inaanu sameeyno kaarka dhalashada inta aanay 6 bilood gaarin ballan waxaan ugu qaadayaa mucaaradka inta ka horeysa intay sameynayaan ka diiwaangelinta muxuu doorashada ka hor inaan dhameeyo ka diiwaangelinta wasiirka maanta shir jira ay ku qabtay magaalada Hargeysa waxa kale oo uu sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay beesha caalamka ku wargelisay in aan la diiwaangelin muwaadiniinta Somaliland Soomaaliya waxay ku andacoonaysaa qaramada midoobay oo gudbisay in aan la diiwaangelin dadka reer Somaliland iyagoo qaata dhalashadii hore ee Soomaaliya in aan loo ogolaanin bay suuqa geliyeen ama caalamka ay geliyeen Soomaaliya in aan caalamku maalgelin wax la yiraahdo dhalasho Somaliland ama reer Somaliland waxa markaa aan weydiinayaa saaxiibada mucaaradka markaynu leenahay yaan la diiwaan gelin dadka reer Somaliland oo imika wax waliba diyaar yihiin miyaanay noqon karin tayaxayid isku toosan miyaanay dhibaato u keeni karin ragga mucaaradka ah ee madaxnimada ka doonaya dalkan iyo fahooda iyo mustaqbalkooda xisbiyada mucaaradka ayaa walaac ka muujiyay labadan diiwaangelin ay saaran iyagoo ku sababeeyay inay caqabad ku noqonayaan qabsoomidda doorashooyinka Khalid Xabsi Kalsan TV Hargeysa